xuska iyo siyaarada Sheekh Cabdulqaadir Jeylaani ayaa lagu qabtay dalka Sweden gaar ahaan magaala madaxdiisa koobaad ee Stockholm. Munaasabada oo si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa soo agaasimay jamaacada Muallim Saciid ee magaaladaasi. Qawsul A'zam aw taqaaniin ayaa caaw ziyaaradiis u fadhinaa. Sayyidi Cabdulqaadir Jeylaani wuxuu ahaa Shaykhul Hanaabilati wa Shaafi'iyatu ahaa. Waqtigiisa zamankiisa faqih Hanbali ayuu ahaa oo fuqahada waqti zamankiisa kamid ah Sheekh Shaafi'iyati uu ahaa madaahibta kale tan uu sheekha u fidiyoon jiray sheekha saala socotiin zamanku soo baxay sheekha Qawsul A'zamka oo am waqti uu yimaaday oo dhashay waxay ahayd waqtiga islaamka dhibaato badan ay ku sugnaa sida la wada socotiin oo islaamka yani dawladihii jooga waqtiga dawladda Cabbaasiya ay khilaaf badan uu ka dhaxeeyay oo madaxda mar walba la dilaayay magaalada Baghdadna ay ahayd magaalada Baghdadna iska ahayd magaalo yani dadka mooryaanta dadka dilo ee dadka waxa waa bidcooyinka oo zamankaas meel ay saldhig ka dhigteen ay ahayd waqtigu sheekha soo baxayay salawada socoteen oo taariikhda ku qoran Qawsul A'zam Sayyidi Cabdulqaadir Jeylaani wuxuu ahaa qofkii hooshaas oo dhan Ilaahay sabab ugu dhigay inuu magaaladaas dawladii islaamka oo dhici rabteen uu sabab uu Ilaahay uga dhigo Baytul Maqdis iyo waxa waaye dhulkii la haystane oo Ilaahay sabab uga dhigay dadkii furi lahaa inuu jiilkaas uu aasaaso sheekha sida la wada socotiin taariikhdiisa mashaayikhda ayaa nooga sheekeen doona insha Allah taala laakiin waxa kaliya oo la rabaa waxay tahay oo Ilaahay markii la ziyaaranayo meelahan kale la yimaado waxa waaye إلهي درتيس أيا لو زيارنا يا محبة يا كزيادو وعند ذكر الصالحين صالحين تمرك الله حصاي أما موعد الله شيء جايو يعني وهو إلهي رحمتيس أيا سودرتو مركا شيخ غوث الأعظم من السيدة تاريخ الله سعتين يعني شيخ الشريعة نوها شيخ الطريقة نوها طريقة صوفية أو أما مشايخ ذين ينون نظامين طريقين كان تراد البضن شاذلية نقشبندية خلوتية بيومية لما أنا الله سعتين شيخي aasay ayuu ahaa taariikhda marka culimada awliya Ilaahay marka laga wada hadlayo culimada ayaga is yaqaanay oo dhahan ninkan waxa waa darajadaas ayuu gaaray ninkan darajadaas ayuu gaaray ninkan waxa waa wuxuu ahaa yani xaafid uu ahaa ninkan wuxuu ahaa yani mutqin oo wuxuu ahaa cilmigaas yaqaano ama sheekh wuxuu ahaa sheekhu dariiqa ayuu ahaa ama wali Ilaahay ayaga is yaqaan Qawsul A'zam taariikhda markii yani culimada ay noo soo qoreen sheegayaan waxay tahay wali Ilaahay ma soo marin zamankiisa zaman ka dambeeyay qof asagoo kaleete ah oo kutubta lagu qoray iyo sida loo amaanay hatta yani ahlu zayg wa zandaqati dadka yani bidcooyinka hataa ay amaaneen ma jiro shiicada ayaa amaantay khawaarijta ayaa amaantay Qawsul A'zam yani qof ahaa looga deysanayo yani Ilaahay uu si waarith Muhammadi ayaa la dhahay yani wuxuu ahaa يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه ودديس قف توس ugu taagan ayuu ah sheekha oo dadkii hadda inta la sheegi karo kutubta lama soo koobi karo laakiin waxa la dhahaa sheekha inta wali oo kutubta ku qoran oo la hubo yani oo umada dhan wada taqaano wuxuu sheekha yani xirtiisa kamid ah 12,000 oo wali Ilaahay ayuu sheekha ma taqaanid rag soo saar kamid ah maalin kasta zaman kasta maalin walba oo la iskugu yimaado majliska iskugu yimaadana intaas qof ayaa ku toobad keenaysay intaas qof ayaa ku hanuunaysay yahuuda dadku u adag ah ogtiin oo aan islaamin majliska Sheekh Cabdulqaadir ayuu ku islaamayeen marka waqtigu soo baxay waqti wuxuu ahaa dhibaato badan ay ka jirtay islaamka marka sheekha waxa waaye umaradina uu nooleeyay oo dadkii suldaanada oo dadkii madaxda ahaan runta ay u sheegay oo muusan ka heebeysan jirin waligiis muusan u istaagin sheekha qof madax muusan u istaagin يعني علميان دينتاني waxa waa sheekhan mujaahado badan ayuu maray waxa waa sheekh la iska madhiin dhibaato badan u soo maray sida la socotiin taariikhdiisa marka Qawsul A'zam wuxuu ahaa xasaniyin u ahaa yani xuseynin u ahaa yani waa nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi sidatan faadima qof ku abtirsanaa shariif wuxuu ahaa zamankiisa oo uu ahaa yani nuqabadii ama sayyidul ashraf u ahaa ashrafta waqti zamanka sayyidkoodu ahaa سيد المشايخ الإسلام كجوكت سيد أيوها مركا كتبت الإسلام مركا لغورة مركا شيخ عبد القادر وكاليتو قف يعني سيد علماء واوين كشيخ إمام النووي وكاليتو عز الدين ابن عبد السلام وكاليتو
يعني وحو داي نولما سو غورين كرامات قف او تواتر او نغو سو غارتay wali ilaahay karaamadiisa oo tawatur waxa laga wadaa culimo waaweyn oo ajille wax isku waafaqeen oo dhahay ninkaas ana ku arkay oo oona is aqoonin marka qof karaamadiisa loo soo naqliyo ma jirto oo Sheekh Abdul Qaadir ka karaamo badan qof kasto arko oo la kulma yani wuxuu kula kulmaa wuxuu asaga soo doonto meeshaas ay u keenay qowsul aadam marka sheegeena qowsul aadam ayaa ziyaaradiisa caaw u fadhinaa مشايخ بدن أيام نو جوكتو قارن وينو إمام دونا شيخنا شيخ محي الدين مادحين بدن أيام نو فديان ركبا علماء أيام نو آيات جوجان مركعاو إن شاء الله تعالى وهبين وين واي وليد إلهي إنه حواي هبين ذو حوا للزيارة نايو ويكلوين تاي غوث العظم وكلاته ما قال لوش شيء ماشاس ولي أو مجلس لوش شيء سو مجلس كيس ومتغاند وين يا غوث العظم إنه حواي إلهي بركة سرجين إلهي إنه نوصيه إن شاء الله تعالى marka sheegeena waxa waay Sheekh Usmaan ayaa waxa waay kelimo yar noo gelin doona insha Allah taala laakiin waxaana intii ay socotay diiradda lagu saaray taariikhda iyo waxqabadka Sheekh Abdul Qaadir Jeylaani oo ahaa caalim weyn caabid iyo hogaamiye ruuxi ah oo wax badan u qabtay ummadda muslimiinta ah waxaa ka qayb galay caalimka Soomaaliyeed Sheekh Muxiidiin Xasan Ayaanle culimo u diinka jaaliyadda Soomaalida xer dhalinyaro iyo waalidiin waxaana goobta laga jeediyay qasaa'id nabi amaan ah iyo xadrooyin dhikriga alle ah افتح لنا ويا غفر ورا وانصر لنا نصرا سريعا بادرا يا جيلاني يا نور الهدى اجب جميع الدعوات عن مزيغ العراق مخرج لنا إلى بلادنا فكن مبادرا جيلاني يا نور الهدى أجب جميع الدعوات أما مريدها قد دعاك حاجدا عشاك لا تجيب فهو يا فاغرا فجيلاني يا نور الهدى جميع لا يا مددي يا أمدادي يا ذغراتي كل سريعا إذا يا شاهرا لا جيلاني يا نور الهدى أجب جميع الدعوة يا ظاهرا الله فلا أزالكم لا حين دائما وقتل منامي با وكاموا صابرا لا جيلاني يا نور الهدى أجب جميعا دعوتي يا الله يا ربي يا معبودي يا مالك الملك يا مغسولي أميدنا من شيخ الوجود غوث الورى سيدي جيلاني يا ربي يا معبودي يا مالك الملك يا مغسولي أميدنا من شيخ الوجود غوث الورى سيدي جيلاني الله يا ربي يا معبودي يا مالك الملك يا مقصودي أميدنا شيخ الوجود غوث الورى سيدي الجيلاني ربي يا معبود يا مالك الملك يا مقصود أميدنا في شيخ الوجود سيدي جيلاني أبو جيلاني إنك موسى وصلك أي أم الخير بيسونك أما ناكو أفلاح أولياء
لنكي أسر يا غوث الورى سيدي جيلاني الله يا ربي يا معبود يا مالك الملك يا مقصود آمين لنا بشيخ الوجود غوث الورى سيدي جيلاني وأكرمان على سيدي نور يا رسول الله أنت عمدتي يا حبيب الله فيك منيتي أنت سيد الكون أحمد يا إلهنا صلي سلما للنبي ضاع وأكرمان سيدي نور أحمد من أتى إليك مصليا طالبا إلى العون عالما على قدره اسمي أحمد يا إلهنا صلي سلما للنبي ضاع وأكرما على سيدي نور أحمد لا يخيب ما قد لجأ على رب الخالق رتبة العلي كلنا على نظم أحمد يا إله أنا صلي سلما للنبي وأكرما على سيدي نور صلي يا أخي على من سرى من حرام لي مسجد الأقصى ذاك سيدي وهو أحمد يا إله أنا صلي سلما للنبي وأكرما على سيدي نوريا واستر عيبنا يا رب العلا واختم عمرنا بعفو عندنا وكذا رضا فضل أحمد يا إلهنا صلي سلما للنبي وأكرما على سيدي نور أحمد بيته على sheekh muxiidiin xasan ayaanle iyo usmaan xaaji aadan oo ka hadlay munaasabada xuska sheekh cabdulqaadir jeylaani ayaa khudbadooda waxa ay diiradda ku saareen waxqabadkii sheekh cabdulqaadir jeylaani iyaga oo u duceeyay inuu dhibaatada alla ka saaro wadamada muslimiinta ah si gaar ah wadankeena Soomaaliya ilaahay quraankiisa kuma wari innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaa'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بل أيضا في ربط آيات دا أصفر حتى يبشارة كم موغطو يا إسكالي مسلمين يا إسكالي إلهي وحور إن الذين قالوا ربنا الله بدكي راهدين إلهي أيا رب النوع ورانا مهجرنا ذكاس الله نغدرنا ها داتنا لكن أساه ولما الله نقدرك حكمة ها داتنا وما كوه بردك مايا الله نقدره ها كلمة داسان أنكو قرين يا وكان زهاي الدون كيس أوبري إلى قعنيه يو أو مرنا إلى كسوعري وكان زهاي إلى هي إسلام ما حقيقة الله نقدر ده إسلام كان الله نقدر ده إسلام كان الله نقول عليه ده إسلام كان قيامة الله نقص صار ده أولادين إيه ورصدين إيه ضبكين إيه أهلدين إيه إنتان جعلنا نار جهنم إلهي نمت صلاة استقامة على نتصو استقامة ما هي استقامة وحوى شريعة الإسلام كشانت صلاة دكتو حوضا إنه الدولار هذا يملك جرت الزكاة أكديبتو حج كهدو كوكو واجب أدقيسو بشر رمضان عطسونتو ويوم حور السحابي يا رسول الله أنا محل يقرأ مركز سالي شن صلاة هذا القصار وحكى ما جروا وحكى له القصار ما جرانا واجباتنا رمضان والقصاري حجنا والقصاري مركز سوير السحابي وحنا كدر مايو واجباتك وحنا كدرها لمارك مركز النبي محور عليه الصلاة والسلام وحوري فاز أور والليباني إن صدق أور النبي عليه الصلاة والسلام
hadduu run sheego waa liibaanay war hadda islaamnimada aan sheeganayn allah noo rumeeya dhaha allah nagu dila dhaha allah nagu soo saaro dhaha ilaahay addoomankiisu wuxuu jecel yahay addoonka barya ilaahay qofka markuu baryo addoonka ilaahay waa siinaya ilaahay wuxuu ka nasahan yahay addoonkiisu ilaahay waxaas isii yidhi amba ilaahay iga dhigideen inuu ilaahay wax ka ceshto wadaadka digrinaya muxuu yidhi يا رب صل على النبي محمد 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 يا ما إذا يحيد يشغل محمد يا رب صل على النبي محمد معنى هذا وحواي يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبيض وحاخجرته أوليه إلهي يريد هذا هذا بجهرتي إله كلا أنطورا يا ماجرة ما كلا أرى مجت ميا مجت إلهي يريد ديسا إله يريد هذا نجهرنا لنا إله هو خبر إن نعفي لنا إله أنه دمبوني oo maganaysa caasiyo oo dambiyaal aan nahay aan haddana dambigeena kuu sheeganayna oo aan ka rabnaa inaan cafiso ilaahay nacafi dhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nicmahoodana ka mid weeye waa lagu yaqaanaa reer banu israa'iilka marka meesha maxaad ka garanaysaa biyo la'aantu markay haysay nabi muuse wax weydiisteen oo biyaan rabnaa bay yidhaah hadhow markii waxaan ay u dulqaadan waayeen oo yiraahdeen wixii aan naqaanay baa rabnaayo wax badan oo cusubna asagii bay waxay leeyihiin ilaahay noo bari waa dadku marka inay ilaahay ambiyadiisii ama dadka saalixiinta ay aadaan quraanka laftigiisa asiyaabaha u tusinaya waxa weeye ayaguba nabi muuse ma oran ma ilaahay weydiisataan oo tirahdaan waa waliba waxay rabbi ilaahay si mucjisahaana inay ugu dhacdo dhulka markaliya inay beero inta ka soo boodaan oo kale ama waxay yaqaan cirka laga soo daadiyo inkastoo markaa dambata aan loo samaynin oo la yiri aada la yiri marka meel magaala u hoobta markaa la yiri magaalooyinka tagaa meelahaas laga helayaa waxa sheegaysaan waa haddaa adinku tabcaraysaan iyo haddaad maaragtay si kaleba ku helaysaan ilaa u barteen ma ogtahay arrintii mucjisada ahayd waa qaadan waaye eebidu misramaati aayad waayahay marka waxay tusinaysaa dadkaani waxay ahaayeen dadkii ambiyada rumeeyey dadku markii dhibaatooyinka ay ku dhacaan inay ilaahay ambiyadoodii inta u tagaan ama noo duceeya ha yidhaahdeen ama siiqa istiqaasa ha isticmaaleen ambiyaduna aanay diidi jirin maxaa yeelay ujeedadaas waxay u samaynahayaan ayagu ilaahay inay baryaan waxa uga dhow ambiyadooda ilaahay inay u baryaan waa marka sheekada ah ilaahay yani qofkan waa ula siman tahay adigu ma ilaahay bari la kuma diidana ilaahay bari toos u bari waana waxa oo amro wanaagsan laakiin markaad waxyaalaha wasaa'ida ee quraanka ku yimaado waa aad inkirto adigu marka ma adiga musharric oo diinta ma adiga jideeyo waa ka ilaahay ambiyadiisu kuma qabsanin waa hayl macnaheedu waxa weeye dadkan waxay og yihiin inay ilaahay uga dhow yihiin bay og yihiin oo kuma kalsoona hadday ayagu ilaahay baryaan mar walba in laga yeeli karo arrinta waliba kuwan hadda niman faasiqiin bay ahaayeen bawaa ka mar walba nabi waa ka waayahay qolooyinkaas marka inta haddaan uga gudubno markaan muxuu ahaa waxaan u gudbaynaa aayadda labaad ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxa ay ku soo dhamaatay si qurux badan iyada oo si weyn looga faa'iideystay casharadii lagu soo bandhigay taariikhda iyo waxqabadka Sheekh Cabdulqaadir Jaylaani waxaana laga dareemayay goobta munaasabadda niyad sami isku xirnaan ruuxi ah oo ka turjumaysa midnimada ummadda muslimiinta ah ee goobta ku sugneed Umar Dhiblaawe shabakatu Daarayn magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
حرير لا صار حفظ ميكردون حسن حسين ركود تبحي